barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo luga maxay kala yihiin halgeli ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weriyaha iyo erayada qaar dhegaystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan igahoo jaamac guuleed nin la oran jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma tal waa tahay inta laga warhayo gerigu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sarguurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadhaysan taasna waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maayee waxaan soo qaadkeeda uga gol leeyahay erey aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jiray iyo in kale waa ereyga halgeli waa wax jira dugaagga laboodka ah qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo ereyga hal sida halyey oo ah yeyga lab iyo haldhurre ama haldhaa oo ah gorayga laakiinse ma jirtaa in geriga lab isna halgeli lagu magacaabo anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan waa qalad in la yidhaahdo halgeli dhadig ah siduu ku celcelinayo weriye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay isla weriyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo waa weer qalada dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda waa jeenye iyo lugo jeenyuhu waa labada hore luguhuna waa kuwa dambe sidaa darteed waxay ahayd in weriyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo dadku isagu waa laba ku joog jeenyana ma lehee kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeenya ku sheegaan sida markuu sayid maxamed ku diganayay richard corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiraayaday ila dhaceen jira afkoodii dheh noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujaystaayo waxay isweydiin jireen adinma goroya ma lugaa mase waa jeenyo sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay kolka waa gaf in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay sidaan maalin sii horraysa ka maqlay weriye idaacadaha qaarkood faalle ka tabinayay waxaa ku filayd inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay baahi loo qabaase ma jirto
haween keliya ayaa ku filan. waa tahay weliyo kale oo ka warramaya duufaano xoog badan oo markaas ku soo fool lahaa dalka Maraykanka iyo jasiiradaha Caribbean-ka qaarkood ayaa wuxuu yiri waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan. taasina afkaa ka xumaada ujeedadiisu ma ahayn. waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kelin, markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba jirdaha u siibin. hase ahaatee siduu weliyuhu u yidhi waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda, iyada oo olaahdiisu ay dadka ku boorinayso waxay dhacayaa ha dhaceene in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan. kolka waxaa ku habbooneyd inuu yidhaahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin. beri aan sidaas u sii fogayna waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta, kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiilasha cad oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay. haddaanan gabsanaynna waxay lahaayeen 2 dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa, kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baktiyaan aan ifka tafiir kaga tegi doonin. si kastaba ha ahaatee meesha waxay ka galeen waxay ahayd weliyihii arrintaa ka warramayay afkii uu ku tabiyey. wuxuu yidhi meel hebla waxaa lagu hayaa 2 wiil oo labaduba dhadig yihiin, waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo, sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan. 2 qalad oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay. midi waa 2 wiil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo 2 wiilood, maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas lihi sidaas bay ku wadaroobaan. qaladka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan, maxaa yeelay af Soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay. waxaa la yidhaahdaa saca hebelihi waa riman yahay, ama geela reer hebel gugii dhoweyd badiba waa u rimay. laakiinse markaynu cambaro ka hadlayno waxaynu nidhaahnaa cambara uur bay leedahay, ama uur yar oo 4 bilooda ayay saxarle leedahay iyo wixii la mida. sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiilasha iyo guud ahaan xooluhu jaad ay ahaadaanba way rimaan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.